ka waran haddii macalinkaaga uu ku neceb yahay uu doonayo inuu ku bahdilo uu maalin kasta ku tuso inaadan waxba ahayn laakiin hal jawaab oo aad bixiso ay ka dhigto isaga qof aamusa. Tani ma aha sheeko caadi ah, waa sheekadii nin dunida bedelay, ninkii xabsiga ka soo baxay haddana madaxweyne noqday, Nelson Mandela. wax walba waxay ku bilaabmeen gudaha maqaaxi yar oo jaamacadeed. kusoo dhawaada channelka haddii aad jeceshahay sheekooyinka dhiirigelinta leh, xigmadaha nolosha ee qisaska dadka caalamka bedelay. hadda subscribe saar oo nagu soo biir. maanta waxaan ku haynaa sheeko maskaxda gelgelaysa, sheeko muujinaysa sida deganaanshaha ay kalsoonida uga xoog badan yihiin xanaaqa iyo kibirka. qaybta koowaad, nacaybka profesorka. waqtigii Nelson Mandela uu baranayay sharciga jaamacadda waxaa jiray macalin caddaan ah oo lagu magacaabi jiray Professor Peter. laakiin profesorkaasi ma jeclayn Mandela. ma ahayn sabab uu Mandela qalad sameeyey, balse wuxuu necbeysnaa ardaygaas madow ee degan, caqliga badan, aan xanaaqin. maalin maalmaha ka mid ah, Professor Peter wuxuu qada ka cunayay maqaaxida jaamacadda. Mandela ayaa soo galay isaga oo sita saxankiisa cuntada. dadkii oo dhan waxay filayeen inuu meel kale fadhiisto, laakiin Mandela si degan ayuu ugu ag fadhiistay profesorka. Professor Peter wejigiisii ayaa isbedelay, kadib wuxuu yidhi isagoo kibir leh, Mandela, ma fahansanid in doofaarada iyo shimbiruhu aysan wada fadhiisan marka ay wax cunayaan? dadkii meesha joogay waxay sugayeen Mandela inuu xanaaqo, laakiin Mandela wuxuu si tartiib ah madaxa u qaaday. dhoola caddeyn yar ayuu sameeyey, kadib wuxuu yidhi, ha warwarin professor, goordhow waan kaa duuli doonaa. dadkii qaar way qosleen, profesorkiina wejigiisii xanaaq ayaa qabsaday. Mandela si sharaf leh ayuu uga kacay, wuxuuna aaday miis kale. laakiin maalintaas Professor Peter qalbigiisii waxaa galay hal shay: argoosi. qaybta labaad, su-aashii dabinta ahayd. maalintii xigtay, Professor Peter wuxuu go'aansaday inuu Mandela ku ceebeeyo fasalka dhexdiisa. ardaydii oo dhan ayaa fadhisay. Mandela wuxuu ku fadhiyay kursigiisii sidii caadiga ahayd, deganaan. Profesorka ayaa istaagay isagoo gacmaha gadaal marsaday, kadibna wuxuu yidhi, Master Mandela, haddii aad waddo marayso oo aad hesho 2 boorso, mid lacag ka buuxda midna xigmad ka buuxda, keebaad qaadan lahayd? Profesorka wuxuu moodayay inuu dabin u dhigay. arday badan waxay filayeen Mandela inuu yidhaahdo xigmad, laakiin Mandela xitaa ma fikirin. wuxuu si toos ah u yidhi, waxaan qaadan lahaa lacagta. fasalkii qaar baa qoslay. Professor Peter isagoo dhoola caddeynaya ayuu yidhi, haddaan adiga ahaan lahaa waxaan qaadan lahaa xigmadda. Mandela isagoo indhihiisa si degan u eegaya profesorka ayuu yidhi, qof kasta wuxuu qaataa waxa ka maqan. fasalkii oo dhan waa aamuseen. Professor Peter wejigiisii waxaa qabsaday caro, laakiin Mandela weli waa deganaa, waayo dadka waaweyn qeylo kuma adkaadaan, maskax ayay ku adkaadaan. qaybta saddexaad, warqaddii imtixaanka. maalmo kadib, Professor Peter wuxuu saxayay imtixaankii ardayda. wuxuu gaaray warqaddii Mandela. xanaaqii weli qalbigiisii ayuu ku jiray. markaas ayuu halkii uu dhibco ku qori lahaa ku qoray hal eray: doqonnimo. kadib warqaddii ayuu Mandela u dhiibay. Mandela wuxuu eegay warqaddii. qof walba wuxuu sugayay inuu xanaaqo, laakiin maya, wuxuu fariistay si degan. daqiiqada kadib, Mandela si sharaf leh ayuu u istaagay. wuxuu u soo dhaqaaqay dhanka profesorka. Professor Peter, waxaad ku saxiixday magacaada, laakiin ima aadan siin wax calaamad ah. Profesorkii wuu aamusay. fasalkii oo dhan waa yaabay, waana maalintii ay dadka oo dhan fahmeen in Mandela aanu ku weynayn xoog, balse uu ku weynaa maskax, dulqaad iyo kalsooni.
noloshaada waxaad la kulmi doontaa dad ku nacayb, dad doonaya inay ku yareeyaan ama ku dareensiiyaan inaadan qiimo lahayn, laakiin marna ha u ogolaan qof kale inuu dilo kalsoonidaada, sababtoo ah qofka runta ah ma aha qofka qaaliya, waa qofka xitaa marka la dhaawaco si degan u istaaga. Nelson Mandela wuxuu adduunka tusay in sharaftu ka weyn yahay xanaaqa, caqliguna ka xoog badan yahay kibirka. haddii sheekadani qalbigaada taabatay, like saar muuqaalka, commentina ku qor ereyga kalsooni, sidoo kale subscribe saar channelka si aadan u dhaafin sheekooyinka ugu xiisaha badan ee dhiirigelinta leh. aniga iyo adiga waxaan mar kale iskugu soo laaban doonaa sheeko kale oo maskaxdaada bedeli doonta.